السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأجدان تتمضوا مقالة سيدي كهر رئيستي سيفي عنه ولا جدان هرتا تتين وعذر هدي كدر تحت حنون كيد الله ما أتكيس كرا دتكو ويكيل ميسيسا جدان هرتا دتكو خارح يقانن جد يهود marka magaalada Baraabo dhan ayada qabsatay si fiican wada tusay magaalada dhan ayada wada qabsatay ilaa xag inta suki iyo dhinacaan u wada jeedaan meeshan taaganahay horta titimadan waa cudur waa la agdegan yahay wada jeedaan markuu waxa rabaa in muwaadin walba Baraabo u dhashay inuu xil iska saaro sidoo ku waayo anagu waxaan rabnaa bilicda magaalada inaan soo celino waxa fiican geedahan inaan iska jirno aan ku abuurno geedo qurux badan ma sha Allah marka waxaanu rabnaa inaan adaanu nahay dhalinyarada Baraawe inaan isbiirsano aan awoodinaan hal meel keesano awoodin oo dhan kadibna aan yeelano urur dhalinyaro oo u taagan inay bilicda magaaladooda dib u soo nooleysiyaan markaan ka tagno maamulka marka qof walbo deegaankiisa saadhisan karo asoo dawladdan la kaashanin asoo cidna la kaashanin asaa deegaankiisa dhisan karo waxa la hay gacmooda jirbay wax ku gooyaan dhalinyaradu waxa la rabaa inay isbiirsadaan oo hal meel isku yimaadaan ay macnaha arimaha deegaankooda ka hadlaan shaqo abuur deegaankooda u sameeyaan waa u jeedaan magaaladu soo soco waxaan idin tusi doonaa sidoo magaaladu ku hareereysay titimadu si fiican u fiiriya marka oo jeedaan magaaladu dhan ayada qabsatay si fiican u fiiriya xaaladda maanta magaalada Baraawe ka taagan waa waljiloogan in macnaha hal mar la isku imaado oo la soo ciribtiro dhamaantooda wax ka fiican ma jiro insha Allah dhalinyaradu waa awoodda dalku waa awoodda deegaanku dhalinyaro waa taqaanaan sida ururka Israa'iil ayaan ku deysana ayagu inkastoo aan ayaga amal noqon karin insha Allah ururka Israa'iilna waxa loo xisaa in lagu deysto in dhalinyaradu sidooda amal u kacaan oo isbiirsadaan oo xaaladda wadankooda ay ku jirto aysan ku fiirsanin mar walba ma ahan inaan dawladdu wax ka sugno waa inaan anagu isbiirsanaa أنا ودي نسكاشنا إن شاء الله سوسعوا دكتور حنتوسي دونا حالة كتاعن مجال هذا براوي وجدان سفي عن توسي قشين هوريالو iyo waxa darkaysa xayawaanada inay meel xun iskaga dhintaan ujeedaan xayawaankan zaid u rooya si fiican u jeedaan aad u dhintay ujeedaan aad u dhintay wax badanna halkan ka jirto teeda kale waxa fiican meelahan roobka maro in loo sameeyo buuntooyin marka dadku markii ku dhintay xoogaa yar marka u socno dana waxaad arkaysaa dameer inuu meesha ku dhintay dameer oo jeedaan wallahi xaaladda nadaafadda deegaankan aad bay u liidataa dadkeedu kama shaqeyso nadaafadda deegaanka maamulkana kama shaqeyso markii dadka la tusayo social media Baraawe laga soo duubay muuqaalo waxa dadka loo muujiyaa muuqaalo qurux badan iyo sawiro qurux badan runtii xaaladda dhabta oo magaalada dhex taalo cid sheegi karto maanta ma jirto ilaa qofka muwaadinka ku dhex nool
marka waxaanu leenahay dhalinyaradu baraaban la hadlaa waa inay isbiirsadaan oo dalkooda iyo dadkooda dhistaan iyo deegaankooda maasha allah. تيميون وحرة ودنا نبيني فيديو ليش أسكسب لا وهالكس وجدا واتيتي وودو واتيتي دمان ودوينكي وجدا مركو حرة بقى ما ممكن تقول ما شاء الله دولة وجودها هالكني براوي عاصمة دولة الصومالية وجودها حافظ وحا حرين مري وجودها جيدك والجلو marka dadka social media marka muuqaalo fiican loo soo bandhigay ayay waxay u maleeyaan magaaladii inay magaalo fiican ay tahay laakiin wax aysan akhbaar ay ka helin qofka u dhashtay oo muwaadin Soomaali oo deegaankaasi u kastay waan gartay horta xaaladda degmada aad oo maamul uu jiro maamulkaasna waxba ka qabanin magaaladu waxay soo martay ilaa ku dhawaad 5 gudoomiyo ilaa hadda ay wax san ay qaban u jeedno anaga danahay dhalinyarada degmada Baraawe marka waxa ka codsanayaa jaaliyadaha ka soo jeedo deegaanka Baraawe ha noqdo Yurub ha noqdo qaaradda Afrika meel walba ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay deegaanka waxba ay ka bedelaan horta ay dhistaan dal walba dadkiisa dhistaa inay dawladda ku imaad ama qof ku imaad dalka ku marisayo laakiin adag dhisanaysa taasina waa mid marka dadka madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirooyinka xildhibaanada oo ka soo jeedo degmada tani ee Baraawe inay oo degmo ay tahay wala ogaa caasimada Koonfur Galbeed magaaladu waxay laga tilmaamay waa caasimada rasmiga ah ee Koonfur Galbeed aysan u muuqan cid caasimad ay tahay marka dadka ka soo jeedo degmada Baraawe waxaan ka codsanayaa inay deegaankan Baraawe ay hagaajiyaan ay dhisaan nadaafadda ay ka taliyaan xitaa nadaafadda ay way liidataa dhanka nadaafadda marka la eego magaalada Baraawe ka liidataa marka waxaa idin ka codsanayaa dadka ka soo jeedo deegaankan Baraawe ee qurbaha joogo waxaa idin ka codsanayaa marka dhamaan waxaan ka codsanayaa inay deegaankan waxba ka bedelaan ayaan ka codsanayaa in ilaahay noo dhisaan waxba noo dhisaan dekadiina ay xiran tahay dekadii inay noo furaan rajinayna dhamaantood waxaan ka codsanayaa ugu horeey madaxweynaha federaalka Soomaaliya